ka shaqeynayn may anigu homework ma dirin buu yidhi wuxuu maalin labadii mas'ale caynka ahayd saaha homework ma ahayn buu yidhi waxa aan sharxay xisaabaadka dunidu professorska mathematicsku masaa'il aan wali solutionkeeda la gaadhin oo aan dadku awoodin wali inay solve gareeyaan baan sharxay laba mas'alo ka mid aan markaa tusaale idinka siiyey wuxuu waan soo solve gareeyay tii koowaad keen baa la yidhi waa la arkay waa sax siduu solve gareeyay the four paper solution bay yidhahdaan oo jaamacadda lagu dhijiyey markaa afartii waraaqood ee ardaygu ku solve gareeyay waxay yidhahdeen haddii uu ardaygani soo jeedi lahaa bay yidhahdeen xisaabtaa lama heleen waayo hadduu soo jeedi lahaa dee macallinkaa marka hore sheegi lahaa inay ka mid tahay kuwa dunida aanay solve garayna wuxuu odhan lahaa dee cidina uma taagayso professorkiiba uu ka yidhi laba solve garayne laakiin markii lagu yidhi waa homework uu u qaatay ayuu digdigtii ka soo gaadhsiiyey isagaaba dunida u solve gareeyey problemkii loo taag lahaa waxaan uga jeedaa war waxaan dunidu u taag la'aday xataa haddaad u xidhxidhato waad solve garayn kartaa laakiin waxa weeyaan qofku inay ka soo go'do waqti iyo juhdina inuu geliyo waqti iyo juhdi inuu geliyo qofkuna ay ka soo go'do waad solve garayn kartaa idan waa la baran karaa waalidka u malayn maayo waalid muslimi in diin islaam la barto inuu diidayo ee malaa si unbaa isfaham waa u jiraaye dee bal waalidka si kale wax loogu sharxo waalidka in uun isle hungurigaa inankaaga ka habsaamaya hadduu diinta bartay dhakhtarnimada ka fiicnaydna waxaan leeyahay war arsaaqdu waa iska qorantahay waxba labadaba wuu wada baran karaaye labadaba waa la wada baran karaa maanta culamo badan oo muslimiina ayaa intay digrii qaateen haddana ta kala bilaabo digriiga kale ka baxay maalan waddankan masar la yidhaahdo culamada badan ay joogtaa maxamed ismaaciil yaasir burhaami maxaa la yidhaahdaa xuseen cafaani maxaa la yidhaahdaa axmed xatiiba waa dhakhaatiir dhammaantood nimankaan sheegoo dhami jaraaxa qaarkood doctorate bay ku qaateen dhakhtarnimada yacni saddexdii shahaade kala dambeeyeyba way qaateen ilaa ay doctor qaateen isla markaana waa mutakhasisiin fi cilmi shariica haddana jaamacaadka islaamigana way ka baxeen intay galeen waxaan uga jeedaa labada jaamacadoodba waa laga bixi karaa haddaad adigu rabto waxa kanay dhabkaa yihin marka waalidka waxaan uga jeedaa uun ilmo kuu hagaagaya injineer iyo dhakhtar faranji kaa noqdoo luma waxba ku tari maayaan geeljiro diin la dhaama se waxa kaloo ka sii fiican labadaba isagoo xaggana dhakhtar kuu noqday ama injineerka doonaysana kuu noqday nin muslimo waxgaradana kuu noqdaa ka sii fiican waa se la heli karaa iyo adigu ilmaha niyad jebinin wallahu aclam jazaaka allahu khayr sheekh mustafe sheekh su-aashan qofka soo qor waxa uu leeyahay waxaan jeclahay in aan diinta ku sugnaado waqti walba laakiin dhibka haysto markay arrin yar dhacdo musiibo mid caama mid guud waxaan dareemaa hoos u dhac sidee diinta ugu sugnaan karaa sida wiilka yar ee diinta ugu sugnaaday ilaa la dilo falyatafadal sheekh mustafe kow yaqiintaa in rabbi jiro ogsoonow yaqiintaa alqadaa walqadar inay wax waliba ku socdaan ogsoonow yaqiintaa in ilaahay dunidanu isagu maamulo cid kale la maamulin ogsoonow ثاني الأمر إلهي بري سبحانه وتعالى ثالث الأمر عدة خيرك كشقين يسائي ملا خيرك لغوها يكا أقدوو يعني قفك كلما هو خير دقيسته وكريه كلما هو شر دقيستنا وضعيفيه كلما ميل مران يا عيار قرأ وبحضة واد مران يساعدنا وح مران وحبك وشرين بطابع يساعد ساوجد قفك وابن بيئتي مركا waxaan ku kula talinayaa khayrka iyo meelaha khayrka lagu hayo ka agdhowow cilmigaagu mar kasta uu korana mashaakilkuba wax ma gaadhaan qofku hadduu cilmigiisu xad gaadho ilaahay wuxuu leeyahay waraasikhuuna fi lcilmi yaquuluun aamana kullu min cindi rabbina xaddu rusuuqa haddaad gaadhana labaclabacduba way dhammaataa oo ilaahay baa wuxuu leeyahay raasikhiintu fi lcilmi mushkilad kastoo timaadda iyagu waxay yidhaahdaan maxay ilaahay baa noo rabbiya wax walibana ilahay xaggiisa ka yimaadeen subxaana wa tacaala wallahu aclam jazaaka allahu khayr su-aasha ugu dambeysa sheekh mustafa dadku waxay u qaybsamaan laba qaybood qayb dadka ugu yeedha shar hormuudna u ah iyo dad khayrka ugu yeedha qofka su-aalka soo qor waxa uu leeyahay anigu waxaan raacay dadka sharta ugu yeedha waxaan aad u jeclaa heesaha muusikada weliba waxaan dareemaa qalbigayga inuu ku raaxaysto sida halkan ku qoran iyo reereen iyo raaxaan dareemaa arrintaas igala tali inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala iga titiro qalbigeygana alla ii bari sheekh mustafa falyatafadal sheekh horta haddiiba aad tidhi dadka sharka u horseedaan ku jira waxaan isleeyahay malaa iimaanka weli wax badan baa kuu hadho waad garatay inuu shar yahay
sharku se wuxuu u baahan yahay in laga foqo yacni haddaabad garatay waxa kani inuu shar yahay aadam iyo ibliis maxaa u dhexeeyey aadam waxaa la yidhi sujuud waxaa aadam la yidhi maxay geedka ahaa cunin wuu cunay ibliisna waxaa la yidhi sujuud wuu diiday midna amar buu fulin waayey midna nahyi buu ayuu labada qadiyadood midna waa amar midna waa nahyi mid waliba khilaaf buu sameeyey aadam laakiin wuxuu qirtay inuu khalad galay rabbanaa inana dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna wuxuu qartay inuu qaldamay facasaa aadamu rabbuhu fagawa dabeetana ilahay buu toobad weydiistay ibliis markii la yidhi sharka maxaad u samaysayna kibir buu ka sii qaado wuxuu yidhi dee anaaba ka fadli badan muran kaluu bilaabay iyo digdig wuu arkaya inuu qaldan yahay qarshajac kaluu bilaabo oo ah anaaba ka fadli badan maxaad sheegaysaa marka haddaad garatay wuxuu inuu shar yahay qarshajacdii ibliis haddaba ha bilaabinoo muran ha keenin oo heesaha dhagaha waxtara iyo muusiga caynkana iyo halkaa ha ka boodine ka foqoo ilaahay u toobadkeen subxaana wa tacaala ilaahay u toobadkeen oo isku day inaad aakhiradaada ilaashato kuwa naarta lagu gubanaya inaad ku biirin waayo waxaa lagaala talinaya waa naftaada cidna kale wax yeeli maysid sharku xataa hadduu kugu sii bato oo adiga naftaadu waxaad naarta sii kororhsanaysa waxaad un xasuusnaataana bal dabka gurigaaga yaalla farta geli ma awoodid balka kaasi barafka u yahay qiyaas markaa aad leedahay cagahan kula jiraa madaxana waxaan rabaa weliba inaan geliyo waa khatar qofka mu'minkii markaa wuxuu u baahan yahay xumaha inaad ka fuqdid baad u baahantay cid kale uga fuqi maysid daraaddii adiga lafahaagu aad dhowranaysa aad uga fuqaysaa iyo ilaahay ku nicmeeyey inaad caasinin ka warran qof haddaad wax siiso oo wax siiso oo wax siiso uu maalin walba colaadaada kororhsado ina waan idhahnaa ninkaa hebela abaal baaban ku lahaa isna waxaayo waxaas iigu sameeyey waxaa laga yaabaa inaad maalin wanaagu samaysay ninkii aan abaalka ku lahaa ee hebele saa u galay ayaaba waxaayo waxaa iigu sameeyey hadda rabbiga ku nimceeyey ee ku caafimaadiyey ee ku nooleeyey ee waxaasoo abaala kuu galay maalin walba waan caasinayaa habeen iyo waabaryaba muusig iyo demdem kalaan dhegaysanaya oo ilaahu waxaad nimco ay siisay cisyaankaagan ku wadaya wax loo dulqaadan kara maaha ilaahay se waa xaliim kuwii kuwaa gubay buu yidhi haddaad toobad keentaan toobaddaan idinka aqbalaya marka walaal kastoo muslim iyo naftaydaba waxaan idinkula talinayaa inaynu ilaahay u wada toobad keenno subxaana wa tacaala nafti iyo shaytaanna isku dayno inaynu ka adkaano oo ariiqa xaqaa maro wallahu aclam jazaaka allahu khayr walaalo badan aada u tiro badan ayaa waxay codsanayaan ducooyin maalan qof soo qortay su-aasha ama soo qor waxau leey waxaan jeclahay lacagta si aad u daran meeshay gashaan ka dabagalaa see doontaa ku timaado ilaah iga bari inuu ilaah iga qabto midda khayrkan inuu ilaah isiiyo dad kale waxay leeyihin waxaa xanuunsanayo aabbaheen muddo dheer xanuunkiisuna hadda waa ka sii daraya maalin ka dambeysa sheekh noo duceey dad kale waxay leeyihiin fadlan ha noolagu soo duceeyo aabbaha iyo hooyaday u jiraan kuwo kale waxay leedahay hooyo weeyaan waxaa la iga qaatay gabadh aan dhalay isla waddankan joogto norway ilaahayna ii soo barya inuu ilaahay dib igu soo celiyo hooyo kale waxay leedahay carruurtayda ayaa iga saaqiday ilaahay ii barya inuu baaryaal iga dhigo diinta allana kuu hogaansamo ilaah ka dhigo falyatafadal sheekh mustafa bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah ilaahay waxaan ka baryaynaa dhammaanteed inuu xaqayna wada waafajiyo inta mushkiladdu haysata in ilaahay mushkiladda ka fujiyo waxay rabaan wax ka khayr badan le inaa loogu bedelo subxaana wa tacaala wixii dhib dadka muslimiinta haystana in ilaahay ka wada faydo qof walba meeshiisa gaarka ee dhibtu ka haysata in ilaahay dhibtiisaasi uu fudaydiyo wax ka khayr badanna uu siiyo khayrka maanta si alla inoogu kulmiyo in ilaahay jannadiisa inoogu kulmiyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu alxamdu lilah